وعلى wanaagsan dhamaan akhyaartana daawanaysa email kasto joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni falaqaynta qodobada ku soo qaadanayno waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Laascaanood iyo dagaal afka ay khilaaf ka dhex bilaabmay garaadada beesha bariga Sool ama dhulbaante dhexdooda iyo madaxweyne Danay dhinaca kale waxa aynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka wafdi ka socda ciidamada Mareykanka ee Afrika loo yaqaano oo diyaarad khaas ah ugu tagay Garowe Siciid Danay iyo canaan kulul iyo digniino Mareykanku siiyeen Danay dhinaca kale waxaan ku soo qaadanaynaa ganacsiga magaalada Boosaaso oo badi albaabada la isku dhuftay kooxda Daacish oo baad ka guranaysa Boosaaso iyo ciidankii loogu talagalay inay ka difaacaan BSF-ta oo Laascaanood la isku geeyay iyo dhinaca kale waxa kale ku soo qaadanaynaa barnaamijka hiliblihii Hargeysa ku xasuuqay 50,000 ee qof oo hadda Laascaanood ku sugan oo dagaalka hogaaminaya iyo wasiirka gaashaandhigga Somaliland oo afka furtay sheegayna in diyaar loo yahay ciidanka qaranku tallaabo adag ka qaadaan si ay u soo qabtaan ninkaasi xasuuqa baan ka geystay Hargeysa waa se kuma ninkaasi waa Morgan qodobada iyo qodobo kale ayaa ku soo qaadanayna barnaamijka ku soo dhawaada وهاجاك أنكو بلونا برنامج حالة مجالة Laascaanood ayaa haatan waxay tahay mid la isku soo hub guranaya oo la isor fadhiyo iyadoo haatan dhinacyada dagaalamaya ee kala ah ciidamada huwanta iyo kooxaha xagjirka ah iyo argagixisada isku urursatay Laascaanood oo sugaya markaa gurmad badan waxaana ay ku talagaleen waxay ku yeedheen dagaalkii kama dambaysta ah in ciidda ka hor ay markaasi qaadaan weerar xooggan bay doonayaan haddana dhinaca kale khilaaf weyn ayaa haatan soo kala dhex galay kooxaha dabada ka hurinaya dagaalkan ee qarxiyay ee nimanka garaadada ah ee beesha dhulbaante ku abtirsada kuwaasi oo uu hormuud u yahay garaajaba garaadali horta garaadadii oo dhamay Garowe iskugu biya shubteen oo halkaas ay u yaaceen shirba ilaa shalay ilaa maanta u socday dhexdooda dagaal xoogan ba ka dhex socdo afka ah waa la ishayaa waxa haatan ay taaganta gir iyo gir waxaana ay leeyihiin qolyaha ay ku doodayeen qaar dagaalka in la joojiyo gabi ahaanba halkaasi lagu gabagabeeyo maadaama dadkii maatida ahayd cabashadoodii iyo moogta barakiciyaashii ilaa haatan ay dhibban yihiin gadbad qamadiyana u diidan yahay ninka garaajaba garaad cali la yiraahdo oo uu yiri markaa raashinka oo dhan hal la keenay Garowe halka lagu iibiyo hal la kaash gareeyo gawaadhidii ay UNICEF waday kuwii ay markaasi waday hay'adda caawimaadka degdega ah ama moogta masiibooyinka degdega ka hortagistooda markaa Jamhuuriyadda Soomaaliya raashinkii ay waday oo dhan dhexda u istaagay wuxuu noqday burcad badeed maatida ku tacadiyaya oo raashinkoogii qaatay oo markaa ku iibinaya Garowe si dagaalka loogu sii wado oo dhinaca kale guriyo ayuu ka dhistay waa lagu leeyahay hadda Garowe moogta isagu bidhii waa uu taagan yahay garaajaba garaadali si kasta haatee garaada kale ayaa iyagu ku dooday oo leh dagaalka hal la joojiyo oo halkaasi lagu gabagabeeyo wada hadalna dib ha loo bilaabo ciidamaduna ka soo baxaan inta khasaaro inta ka sii badan laha nimankaasi waa laga hortagay hadaba waxaana isahayaa hadda garaajaba garaadali iyo garaada mowqifkooda fogaaday oo dhinaca oo iyagu ku doodayo leh nin qoyan biyo iskama dhowro Somaliland baa u qaadan doonta inaan jabnay yani is adkayn bay ka tahay moogta marka hal wada dagaalka buu leeyahay laakiin runtii wuxuu ka baqanayaa baa la yiri isagu dadkii dhulbaante moogta masaakiinta ayuu kiciyay in haduu halka dagaal ku joojiyo hadhow isagu wuxuu isleeyahay xilka laga qaadi macna garaadka guudaba taasina way jirtaa ta kalena lacag buu ku qabaayo qurba joogtii oo dhan balaayin doolar ku soo shubaysa moogtahay oo guriyihii iyo maatidii qurba joogtii caruuraha la siila lacagii la siilaha ay garaad ku soo shubaan baa la yiri isaguna guriyo ka sameystay markaas Garowe adoo si kasta haatee waxa isku mowqif markaasi Danay iyo markaa garaajaba garaacali oo la dagaalka hal la wado xagga garaadada qaar kale ay leeyihiin hal naga joojiyo dagaalka jiq bay xaaladoodu taagan tahay waxaana laga yaabaa saacadaha soo socda maalmaha soo socda in ay kala jab weyn ku dhici doono oo halkaasi ay ku burburi doonaan huwantu waliba beesha jaamacsiyaad oo gaar ahaan aad loogu tacadiyay magaaladooda in laga baabiyay dadka la barakiciyana waa iyaga uun moogta marka raggaasi ama beeshaasi wax garadkoog iyo garaadadooda iyagu
haatan shalay tolana shir ay qabsadeen buu xitaa ciidankii cabdimudoobe rasaas ay ku fureen wani barnaamij hore ku soo qaatay in xitaa la yidhi garaajaca garaa ismaaciil baaba dhaawaca ilaa iyo hadda lama xaqiijinin waa la qarinaya xaaladiisa garaajaca garaa ismaaciil laakiin garaadadii kale oo dhami garow way joogaan iyaga waa la hubaa ninkii haddaba garaajaca garaad cali waxaa la yidhi karbaaba ku dhuftay xitaa dhowr maalmood buu yaalay dhulka laakiin haddana waa uu soo kacay isagoo iska caata ah oo dhibaataysan oo stress uu ku furan yahay dhinaca marka laga dee buuqan ay garaadada ku hayaan nimankii saaxiibadii ahaa ee islaam moogtahay dee waa wada dagaal saasa dagaalka u wadaysan nimcadaana waad shaqi bislaa isagu moogtahay lacagtay soo shubayaan dee dadka qurba joogto garowna waxa la sheegay laba fiila inuu ka dhistay aduu si kasta haatee niman badan baa kasoo horjeestay imika oo leh war sidan waa dhibaata moogtahay beesha caalamka ee aynu islahayn waxay la qabateen waa tan inaga soo horjeesatay idi xayirtayba garaajaca garaa cali waa la xayirayo baasaboorkiisii uu kala noqday maraykanku garaajaca garaa mukhtaar waa la xayiro Canada kala noqotay baasaboorkii moogtahay iyo dhalashadii xiriirna lama samayn karo dadkiisa Canada jooga niman badan oo moogtahay siyaasiyiin xagla toosiyo ka mid yahay bas iyagana la xayiray beesha caalamka dhan baa hadda kasoo horjeesatay oo u aragtay xaqiiqsatayna inay yihiin fidmo wadayaal argagixisada moogtahay hoosta ku gashanaya oo kooxaha xag jirka iyagu hoy u ah doonaya in halkaas u noqoto ubuucda iyo halka lagu koriyo xag jirnimada iyo argagixisada ciidamada Soomaaliya sababta u saaran leeyihiin ay tahay in la doonayo Daacish shabaab halkaas iyagana la keeno iyo kooxo kale iyaguna xag jira kuwii kale moogtahay habka qabiilka loo xulay in meeshaas ay bahla galeen noqotay doonayaan la saxanood waa la wada ogaaday hadda waa laga soo wada horjeestay in xukuumadda Soomaaliya saxsan tahay baan oo cadaatay dhinaca kale wafdi Mareykan ayaa ka soo daadagay Garowe oo moogtahay diyaarad khaas ah wata danay bay u tageen waxaana shalay galabtii ay canaan kulul u jeediyeen danay waxay u sheegeen ciidamadii BSF-ta ee loo tababaray markaas inay argagixisada la dagaalamaan inay hadda laascaanood ka dhex dagaalamayaan oo nimankii ay la dagaalamayeen xag jirka aad ku sheegayseen iyo kuwii aanu tababarnay baa iska garab dagaalamaya waarsee wax socdaan baa lagu yiri danay waxa la siiyay markaas deadline 2 week baa la siiyay inuu arintaasi soo kala xaqiijiyo ciidamadiisa kala soo baxa halkaasi si dhinaca kale war kale degdeg ah oo warbaahinta Garowe laftirkooda ay sheegayso magaaladii Boosaaso ganacsiyadii albaabada la isku dhuftay nimankii Daacish waxay heleen moogtay dee fasax banaan ciidamadii BSF-ta la dagaalami jirtay ee mushaaraad ku qaadan jirtay watan la saacad ka dagaalamaya iyagii hadda baad bay soo doonteen nimankii moogtay iyagu cashuur bay yiraahdeen kuwa reer Garowe waa baad bay leeyihiin moogtay marka waxay ka guranayaan halkaasi lacagtaasi cashuurta ah ama baadda ah ganacsiyadii Boosaaso ganacsiyo badan baa albaabada la isku dhuftay way xidhantay waxaana iyaga laftirkooda Garowe sheegaysa moogtay warbaahintooda Puntland inay nimankii Daacishada Boosaaso ka talinayaan kooxihii xag jirka oo ay gacanta ku dhigeen inta kuwii loo tababarayna ay ku yaaceen dee laascaanood marka wax isla shaqaysanayuu baahayno filan dee Mareykanka loo jilayo baahayeen Daacish baa joogtay iyo maxay baa jooga iyagu bas kala qaybinaya oo marba moogtay sidoo kale dad baa sheegay oo waxay leeyihiin dadka kale u kuur gala arrimaha geesku dee markii hore meesha may kala soocnayn hubka ugu badan waxa laga soo daadajiyaa Garowe iyo Boosaaso moogtahay hubka ugu badan ee sharci darada hubkan ay Daacish ku dagaalantay shabaab ay ku dagaalantay Boosaaso ka soo daga waana la isla ogyahay Mareykanku wuxuu ka digay xitaa danay oo loo sheegay hubkan sharci darada ku soo galaya moogtahay ganacsiga weyn ka furateen rag xitaa iibiyo la yaqaan hebel waa rag Puntland maxaa wax uga qaban lahayd waxa cadaatay in mashruuc weyn project weyn uu sameystay danay iyo in ilmo diyaano kaasoo ah inay kooxna ka dhigeen argagixiso oo yiraahdeen argagixisadiina waa Daacish iyo shabaab yiraahdeen koox kalena ay markaas yihiin kuwii la dagaalamayay iyagu bana hadda hubka soo gelinaya oo hubkii ka iibinaya nimankan ay Daacish ku sheegayaan waa isla iyagu bas kala qaybinaya afar waxay maalin walba soo qabtaan 5 masaakiin oo meelaha iskaga dawarsanayo kuwan ma garatay raxaweyntii waxa dadka u dhashay iyo jareerta inta soo qabtaan bay yiraahdaan waa Daacish iyo shabaabteen buuraleyda ka soo qabanay inta barka istaajiyaan tiirka ku xidhan ay rasaas ku furaaday dilaan balka wara dulbiga ka socda meeshaas iyagii bana iskala qaybinaya oo marna Daacish iska dhigaya hubkii iyaga soo iibinayo yaban ka soo iibinaya ganacsato reer Garowe iyo moogtay u dhashay beeshii ma jeerteen iyo moogtay Puntland
ayaa hubka u keenta daacishtan wuu og yahay siciidane wuu la shaqaystaa daacishta hubka loo geynay iyaga u geeya bal waxa la hordhigay moogta waa og yihiin moogta kormeerka iyo sirdoonka Mareykanka way hordhigeen waxay ku yiraahdeen waxaana filinka ku cadaatay xiisadan hadda dagaalkan laascaanood ka taagan ba arrinkii oo dhan khashifmay banaanka ayaa la keenay munaafiqnimadii Puntland moogta inay marna iska dhigtay argagixiso marna iska dhigto moogta kuwii hubka ka iibinayay marna iska dhigto kuwii la dagaalamayay saddexda wajiba iyagu ba matalaya marka Mareykanku wuxuu siiyay digniinka madambaysa waxa lagu yiri soo kala cadow siciidanayow ama moogtahay dee argagixisaad doqoni ama hubkan sharci darrada boosaasan iyo garacad laga soo dajinayo joojinayo Yemen laga soo iibinayo yaa daacish siinaysid ama ma garatay dee iyagaad raaci ama anaga raaci ba lagu leeyahay laba week ba la siiyo moogtay warka ku soo caday lagu yiri waa barnaamijkaas ku leeyahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo